بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa saacadaha ay u socdaan si aan caadi ahayn maxaa yeelay xilligii Trump oo qabtay oo saacado ay ka dhimayeen kow labo Mareykanka oo kiciyay diyaaradii lagu magacaabayay qiyaamaha diyaaradda kicinteeda waa halis marka la fiiriyo Mareykanka sida ay u yaqaanaan waxa la kiciyaa oo kaliya marka xaalad amni oo degdeg ay jirto waa diyaarad aad u weyn qaadana nuclear-ka marka ma Iran nuclear lagu dhufan rabaa sidee xaaladda tahay almuhiim arrintaas ka hadli doonaa sidaas oo kale waxa soo baxaya hadda taasana ka bilaabanaaye in nacam bayloodkii iyo soo rididii diyaaradii ikada waxa oo dhan been ay ahaayeen riwaayad la jiray nacam diyaarad way dhacday oo la riday ujeedada loogu talagalay meesha lagu riday ee la rabay in lagu mashquuliyo Iiraaniyiinta naftirkooda hadda fahmay oo wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ma wasiir ku xigeenka warfaafinta mise arrimaha dibadda warfaafinta inuu tabcan waa warfaafinta ayaa wuxuu ka hadlay in nacam Iiraan waxa la rabay in macnaha dhinac kale loo diro laakiin wuxuu yiri waxaan fahamnay markiiba diyaaradaha area-da iyo Asfahan inay aadeen ayagoo tiro badan kadibna area-daasi waxa ku diyaarsanaa sidii horeba loo sheegay dabcan ciidamo iyo kala yaani Iiraaniyiinta area-da marka laga hadlaayo aad amnigeedu u ilaaliyaan hadda meel ukumaada ay yaalaan macquul ma ahan inaadan difaacanin meel ukumaada ay yaalaan macquul ma ahan inaad yaani beelaha ka dhigto marka wuxuu leeyahay area-da bayloodka la yiri ama diyaaradda la yiri way ku dhacday ama waan ku soo ridnay marka la fiiriyo ayaa beelaha ahayd marka loo fiiriyo dhinacan sida darteeda ciidamadii Mareykanka iyo diyaaradahooda waxay yimaadeen Asfahan ayagoo loo diyaarsan yahay maxaa dhacay marka waxa dhacay sida akhbaaraadka isu soo tiray ay sheegayaan ugu yaraan 12 diyaaradood oo Mareykan ayaa meesha ku maqan hadalkan kugu soo celiyo ugu yaraan 12 diyaaradood oo Mareykan ah ayaa ku maqan meeshaasi Asfahan diyaaradaha yimid badankooda waxay ahayn diyaaradaha xamuulka qaada ujeedada waxay ahayd Mareykanka inay xoog macnaha ku qaataan Iiraanka sidaas oo kale waxa cajiib ah Mareykanka waxa jira xaalado degdeg ah ay sameeyaan ama militariga caalamku ay sameeyaan laakiin Mareykanka adiga arintaas aad ugu dheer khaasan Ruushka Ingiriiska way sameeyaan Faransiiska almuhiim diyaaradaha dawladahan ula jeeda waa weyn ay arimaha sameeyaan waxa weeyaan yaani waa bridge ama buundo oo hawada ah la dhisaayo sidaas oo kale iyo buundo badda la dhiso yaani مثلا بدل ربا in laga gudbo ama wabiga raba in laga gudbo wixii diyaar leeyihiin oo ay haystaan buundooyin dhinaca kale hawada marka ay noqoto buundooyin sidaas oo kale ay sameeyaan jira almuhiim waxay sameeyeen marka waa maxay Asfahan area-da ku sameeyeen buunda hawada ayay dhiseen oo la doonayo alaabtaasi culculus ee halista ah kiimikalka ah يرينمك إيران إن لو قدر دلو معهد دار المستقيم للدراسات القرآنية ودكسي عالمي أو أونلاين أو كوجو جارسينيا هب أونلاين برشة دين الإسلام أديكو تشوجو غوريكا جوبتا هذا الشقة أديكا المها غيربا ودكسي مدة أدو كومن أدكو حفتين سام برشة حفتين القرآن كريمكا كنا برانيسان برشة أخرين يقرستي كذا لغة عربية أفك عربية تفسير القرآن كريمكا أحاديث النبيين دعوينكا أفكنا الصومالية يا برشة عقيدة سنة إسلامكا يدور راعيني تاريخ ذا يسير رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم والي ودكسي أديك علم قادنيسو أديكا المها غيربا وأنا دكسي اللي فرن أفري لباتنك ساعة عدد تضمن مع الموضوع أسبوعا أديكا يا دورني حيلك وقت قاعد هليليسو هاتين اسكدي وان قليل يدور دمان دروستو ay kugu imanayso aaladaha kala duwan sida WhatsApp-ka Telegram-ka Zoom iyo waliba Google Meeting-ka wixii faahfaahin waxaad haatan wali weydiinaysaa telefoonada shaashada kaaga muuqda balateena waa dugsiga Daarul Mustaqim lidiraasat al-Qur'aaniyya sida Qur'aanka Kariimka macna Qur'aan online iyo hab online kugu soo gaarsiinaya barashada Qur'aanka Kariimka cilmiga shariicada Islaamka goob kasto dunida kaga joogto iyo waqti kasto haysato hadii baan shaqo ku jirto iyo hadii aad gurigaaga joogto qana laha jinsi u gaaro dugsigan waxa wax ka dhiganaya caruur roole rag iyo dumar waa soo doonayeen bartaan barashada Qur'aanka Kariimka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanayo waxa kamid ah barashada Qur'aanka Kariimka akhrinta iyo qorista igada luqada Carabiga iyo qaybaha shariicada Islaamka sida tafsiirka aqeedada Islaamka ahadiista nabigeena waliba fiqiga waxaana duruustu ay ku soo gaaraysaa aaladaha Telegram-ka Skype-ka waliba WhatsApp-ka waxaana ardayda daafaca dunida joogta loo soo diraya shahaadooyinkooda marka ay ka dhameystaan aqoonta kala duwan ee dugsiga hadaba hadii aad tahay waalid naxariis badan oo ubadkiisa la rabo inuu ku barbaariyo barashada Qur'aanka Kariimka wixii faahfaahin waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda laakiin Iiraaniyiinta sida uu qoraayo The Guardian wuxuu leeyahay qoraalka noocan qoraalku dheer yahay laakiin title-ka uu qaybta ugu horeysa intii nidaamku soo intaasi waxay leeyihiin arintan waxay reminder u tahay xusuusin u tahay Mareykanka the Iranians can fight back in Iiraaniyiinta ay dagaalami karaan maxaa yeelay leeyihiin Mareykanka waxay ku dadaaleen inta aynan soo degin diyaaradahooda iyo helicopterada aynan soo dhaweyn in ay duqeeyaan area-daas oo dhan waliba duqeyn ba'an ay ka geysteen still Iiraaniyiinta waxay ku dadaaleen in aynan macnaha baqin ama laaban ama aysan cararin macnaha waxay adkaysteen difaacadooda
waxay u dagaalameen sida geesiyaal lugaha dhulka la galay oo is-aasay camal ay u dagaalameen taasoo ku kaliftay maraykankii soo duulay inuu asaga dib u cararo oo ciidamadiisa inuu badbaadsado diyaaradaha xataa uu yiri macnaha waxba hadda yani muhiim ma ahan oo aan burburinayna dib aan u burburinayna sidaa darteed ayaa ciidamadii markay ka xeesteen maraykanka ay diyaaradihii kale ee labada ahaa waaweynaa yani ay burburiyeen isweydii qaabka macnaha arinta ay u dhacday kullay waxa laga sheekeyn doonaa muddo sidaas oo kale waxa isweydiinaysaa in diyaarad macnaha sidaa ah weyn waxaan ula jeedaa F-15 ka in la khasaariyo oo meel lagu rido say kula tahay ayadoo ujeedo kale ka weyn la sii doonaysan macnaha marka qaar waxaad arkaysaa malaayiin loo khasaarinaya si malaayiin ama bilyan loo helo marka diyaaradii halkaas lagu riday almuhim akhbaarta waxay sheegaysaa marka maraykanka meeshaas in khasaaro tiro badan oo ka soo gaaray oo adiga busti iyo dhulkii lagu jiidan oo iska tirtiray hadeertaan marka maxaa dhacaya horta waxa cajiib ah 5 dawladood iyo 8 mukhaabaraad ayaa Iiraan barbariyaya waa 5 dawladood iyo 8 mukhaabaraad caalami ah ayaa Iiraan waxay ku barbariyaan leeyihiin please qaata xabad joojin maraykanka wakiil laga yahay maraykanku wuxuu diyaar u yahay inuu dabcan xabad joojinta markiiba qaato maraykanka hadda gacan uga bad ah ogow arinta hadda aan soo wada kulay aan macnaha ku xijin doono taas waan u tagaynaa almuhim sideedan maxaan ku dhahay mukhaabaraad iyo 5 dawladood maxay Iiraan ka rabaan number 1 in ay joojiso xabadda in ay furto marinka Hormuz oo wax walba oo kale macnaha miiska ay saarayeen oo macnaha loo damaanad qaaday taas oo kale aan taqriiban cunaqabateynta laga qaadi doono in markiiba Iiraan macnaha yani ay noqon doonto mid caalamka ku soo laabata kada oo wixii dhacay aaway Iiraan marka ma doonayso xabad joojin ku meel gaar ah ma doonayso wax degdeg ah haba yaraatee ma doonayso shuruudo sidaas oo kale cunaqabateynta in laga wada qaado oo wax alla wixii hanti laga haysto la soo gudbiyo in magdhowlas yani hoola badan waa marka hadii la fiiriyo dadkan maxay u socdeen horta baashi u socdeen shidaalka Venezuela maxaa loo qaatay maxaa Trump uu dhahay shidaalka Iiraan xataa waan qaadanayna lacag la doonaya marka lacagtii la doonaya hadda waxay noqonaysaa in Iiraan ayada ay lacag qaadato waa hadii sidan ay socoto xaaladda weeyaan ma rabtaa inaad noqoto qof quraanka si sax ah u akhriya isla markaana faham qoto dheer u leh diintiisa haddii jawaabtu haa tahay haddeer ku soo biir markas alwaalideyn online waa markas aad ka baran karto quraanka kariimka hingaada carabiga duruus islaamiya oo kala duwan waxaad si qoto dheer u baran doontaa adkaarta axaadiista iyo weliba caqiidada waxaa kaloo aad ka heli kartaa markasa alwaalideyn online ijaasada sanadka ee quraanka kariimka macallimiin aqoon durugsan u leh khibrad ka badan 10 sano haddaba ka faa'iidayso jaaniskan oo ku soo biir maantaba markas alwaalideyn online oo bilow safarkaaga barashada quraanka kariimka wixii macluumaad dheeraada kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda okay waxa marka jira maraykanka inuu goodiyay oo Trump xanaaqay oo caytamay waxa marka dhowr iyo macnaha dhowr boqolha waa sida ay leeyihiin waa more than 100 international law experts waa in ka badan boqol khubaro oo dhinaca iyo sharciyada caalamka ayaa waxay ka digayaan in maraykanka hadduu ku dhahaaqo Trump goodigii oo goodiyay oo waxyaalaha uu sheegay uu sameeyo in arintaasi loo consider garan doono oo loo macnaha qaadan doono inay tahay ama ay tahay war crime dambiyada waaweyn ee dagaalka inay tahay waxay leeyihiin maraykanka waxaan uga digaynaa in arintaasi uu sameeyo galo waa waxa jiray maraykanka in nuclear ku dhufteen Japan waagaasi sharciyadan caalamka iyo heshiisyadan ay ma jirin laakiin maanta waxa jira heshiisyo iyo sharciyo caalamka la degsaday oo cid al cidii arinta ka talaabta dabcan loo aqoonsan doono inay tahay yani balaayo loo inay tahay dambiile ay tahay bali yani maxaan ku dhahay wixii la midka ah sidaa darteed almuhim intaas xaalada jirta dhinaca kale marka waxa diyaaradii qiyaamaha lagu tilmaamay ay ku wareegsatay maraykanka hawadiisa tay gashay dhowr mar ay ku wareegsatay diyaaradan kicitaankeeda horta waxay u kacdaa laba sabab in halis ay jirto ay nuclear ay tahay inay qaado oo markaasina howlgal samayso midaas ay u kacdaa ma kacdo inta kale iyo waxay u kacdaa madaxweynaha halis ayuu ku jiraa xaaladiisa diyaaradda waxay u samaysan tahay qaab oo nuclearka iyo waxyaalaha chemicalka ah aynan awood u lahayn inay gudaheeda u soo galaan waxay leedahay difaacyo almuhim hadee waa laga hadlaa hadii la dhaho waad yaabaysaa waxa lagu tilmaamay diyaaradan sababtaas ay ugu bixiyeen doomsday yani maalinta qiyaamaha ama diyaaradii qiyaamaha taas ay ugu bixiyeen diyaaradan marka macno weyn ay sameynaysaa kicitaanka la kiciyay waxay leeyihiin maanta saacadaha ka dhiman
iiraan waqtigii loo qabtay iyo diyaaraddan kicinta la kiciyey laba ay noqonaysaa in Trump uu xasuuq geysto caalamka oo dhan ay u jeedaan markhaati ay ka yihiin number 1 midaasi wa imma in diyaaraddan ay tahay boroxuftayn lama kiciyo diyaaraddan ma dhacdo kicinta la kiciyey iiraan inay ku kalifto inay dib u fakarto bal xogaa isjiciso ilaan hadda cidda diidan oo kir macnaha ama yani adiga taagan ma rabno wax hadal ah ma rabno taagan waa iiraan maraykanka diyaar yihiin israa'iiliinta ayaga diyaar macnaha ma ahano waa yani ka faa'iideysashay wadaan ayaga dabcan oo diyaar ma marka loo fiiriyo almuhim maxay kula tahay diyaaraddan iyo saacadaha soo socda maxaa dhici karaya kolley waan u jeednaa waan arkaynaa waan u joognaa ula jeedaa wixii dhaca laakiin halis weyn ayaa la sheegayaa haddii arrintan maraykanka ku dhawaaqaan ama ay ku dhaqaaqaan dheh intaasaan kusoo koobaya asalaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida barashada quraanka kariimka ee macalin quraan online ayaa hab online kugu soo gaarsiinaya barashada quraanka kariimka ee cilmiga shariicada islaamka goob kastoo dunida kaga joogto iyo waqti kastoo ay haysato haddii baan shaqo ku jirto iyo haddii aad gurigaaga joogto wana laha jinsi u gaaro dugsigan oo dugsigan waxaa wax ka dhiganaya carruur iyo ciroole rag iyo dumar kuwaasoo doonaya inay bartaan barashada quraanka kariimka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanaya waxaa ka mid ah barashada quraanka kariimka akhrinta iyo qorista igaada luqada carabiga iyo qaybaha shariicada islaamka sida tafsiirka caqiidada islaamka axaadiista nabigeena ee weliba fiqiga waxaana duruustu ay kugu soo gaaraysaa aaladaha telegramka skypeka iyo weliba whatsappka waxaana ardayda daafaha dunida joogta loo soo diraya shahaadooyinkooda marka ay ka dhamaystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan haddaba haddii aad tahay waalid naxariis badan oo ubadkiisa la raba inuu ku barbaariyo barashada quraanka kariimka wixii faahfaahina waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda معهد دار المستقيم للدراسات القرآنية ودكسي عالمي أونلاين أو كوجو سوغارسينيا هب أونلاين برشة دين الإسلام أديكو تشوجو غوريغا جوبتا هذا الشقة أديكو يلمها يربا ودكسي مدة أدو كوبن أدكو حفتين سام برشة حفتين القرآن الكريم كنا برانيسان برشة أخرين يقرستي كذا لغة عربية أفك عربية تفسير القرآن الكريم أحاديث النبيين دعوينك أفكنا الصومالية يا برشة عقيدة السنة الإسلام يدو الله راعيني تاريخ ذا يسير ذي رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم والي ودكسي أديك علم قاذنيسو أديكو يلمها يربا وأنا دكسي اللي فرن أفري لباتنك ساعة عضو يتضمن مع الموضوع أسبوعا أديك يا دورني حيلك وقت قاعد هليليسو هاتنسكدي وانقليم dhammaan duruustu ay kugu imanayso aaladaha kala duwan sida WhatsApp-ka, Telegram-ka, Zoom iyo waliba Google Meeting-ka wixii faahfaahin waxaad haatan wali weydiinaysaa taleefanada shaashada kaaga muuqda belatayna waa dugsiga Daarul Mustaqim lidiraasat alqur'aaniya ma rabtaa inaad noqoto qof quraanka si sax ah u akhriya isla markaana faham qoto dheer u leh diintiisa haddii jawaabtu haa tahay haddeer ku soo biir markas alwaalideyn online waa markas aad ka baran karto quraanka kariimka hingaada carabiga duruus islaamiya oo kala duwan waxaad si qoto dheer u baran doontaa adkaarta axaadiista iyo weliba caqiidada waxaa kaloo aad ka heli kartaa markas alwaalideyn online ijaasada sanadka ee quraanka kariimka macallimiin aqoon durugsan u leh khibrad ka badan 10 sano haddaba ka faa'iidayso jaaniskan oo ku soo biir maantaba markas alwaalideyn online oo bilow safarkaaga barashada quraanka kariimka wixii macluumaad dheeraada kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo kaa caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga waxaan hadda u fududaynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena ma jiro wax maalgelin ah kaliya iska diiwaangeli hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag samaynta ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin booqo dulmidi.com oo bilow lacag samaynta maanta